waxaa jiray intii shaqada aan ku jiray caqabaad aan la kulmayey. waxaa main bontiska ah ama ugu weyn caqabaadka aan la kulmay shabakado shaqaynaya oo isku xidhan oo deegaankii soo gaaray oo u dhisan dal iyo dibad dhaqaalana aruursanayay oo aan intaan shaqada ku jiray taariikhda marka ay ahayd 24 bishii saddexaad 2020 xilli habeenimaahoo 11 iyo 50 daqiiqo inaan gacanta ku soo dhiga 2 eedaysane oo markii hore ay soo gudbiyeen shicibka dhinac aqoon la'aan kadib markii aan soo qabanay booliiska ay keeneen xilligaas habeennimada ah saldhigane aan la xiriirinay oobiga sida sharciga ah ayagoona meeshaan ugu qornay qoraal suspectina geliyey oo inay kala hadleen warbixinta ay dhiibeen kadib waxaan samaynay baaris fudud ama markaas degdeg aheed oo ku saabsan waxyaabaha ay isticmaalayeen moobeelada annagoo aan ku aragna kiisas u baahnaa shabakad ahaan in la dabagalo haddii ay kiis ku soo yeeshaana lagu qabto hadday kiis ku soo yeelo waayaanna sida sharciga ah booliiska Soomaaliyeed oo fasaxooda oo siiyo. nasiib darra ma dhicin. waxaan xiray 24 bishii saddexaad 2020 xilli saqdhaxa ah waxaa la sii daayey nimankaas tuhmanayaasha ah oo shabakada ah oo aan hore u joogi jirin deegaankan. ninka ugu dhowna oo ku soo biiray habeen kin kalena oo ka horreeyay maalin in awood la iigu sheegtay in la sii daayo oo aan loo ogolaan baaris xitaa qaadatay 6 saac. waa dareemi kartiin labadii habeennimo saqdhaxa ayaan waxaa u dhaadhicinay stationka inaan ku xirnay kadib markii aan oobiga marinay 3 saac subaxnimada cagajugleyn iyo awood sheegasho waxaa la sii daayey maxaabiistii labada ahaa oo shabakadda dal iyo dibad isugu xiraa waxyaabihii macluumaadka ahaa ka aruurina intii aan haynay oo saacadaha ahaa ama aan aragnay ayadana la dafiray ee nalagala wareegay si macnaha aan ku dhisnayn sharciga anoo xaq u lahaa taliyihii saldhigga Dhuusamareeb inaan baaristaas meel aan geeyo haddii ay kiis soo yeeshaanna aan la soo wadaaga madaxda iga sarreeyda shaqada hadday kiis yeelo waayaanne aan la soo wadaaga madaxa shaqada ila lahayd oo ay ahayd shaqo aan gutay ama waajibkayga ay ahayd kadibna la siiyo madax bannaanidooda. nasiib darra mana dhicin. waxaa mar labaad soo laabtay dhacdo kale